بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا ماركالي channel كلي توسينتي جرادكا iyo barashada xikmada iyo walaashini ismahan khaliif cali markale idiin sidaa wax tayo leh sidaan ma sha Allah ku balanayba ismahan waxay hore idin kugu soconaysaa maantana xikmadii ayay maantana ku soconaysaa maxaa yeelay barashada xikmada waa wax aad iyo aad u qiimo badan xikmada ayaan ku soconaynaa wax tar ayay noo leedahay waxaan ku leeyahay intaadan hore u galin waxaan ku leeyahay subscribe like and share ka dheh khayrku ala faafiya halkan xikmada ayaan ku baranaynaa bulshada aad iyo aad ayay xikmad ugu baahan tahay kitaabka quraanka in la bartaa oo xikmad lagu qaadaa waxyaabaha xikmada in la bartaa ayaa waajib ah marka ma sha Allah maanta ama caawa ama habeen ama maalin intay ku ahaato markay ku soo gaartaa ka faa'iideysa ayaan ku leeyahay arinkana waxa ugu magac daray xikmada ah waxaan xikmada amaanta soo qaadanaya ay tahay ha iswaalin adduunyada ha isku waalin in aad adduunyo heshaa ha iswaalin ina adduunyo heshaa ha isku waalin oo ha u waalan ina adduunyo heshaa haddaba ordin ilan waa loo waashaaye ha waalan adduunyaha u waalan ha iswaalin ha u waalan adduunya intaa raadinaysid ha waalan naftaada ka nax adduunyada wixii ilaahay kuu qadar waad helaysaa xikmad waaye waxaan ku leeyahay iimaankaaga qab si xikmad leh aqli leh iimaankaaga u qab qof sabar leh aqli leh noqo wax walba aaweysaa iyo wax walba heshaa xikmad ayaa ku jirto wuxuu ilaahay ku siiyey sabab ayuu kuu siiyey ilaahay ayaa u ujeedadeeda anaga ma garanayno haddaa laakiin adiga qof aqli badan tahay ama xikmad leh tahay siba aqliga keli lama rabo xikmad leh oo ma sha Allah qof oo u saaxiib ay xikmada ama baranaya haddaad tahay waxaana lagu siin waad garanaysaa ilaahay wax kugu tiiday waa fahmaysaa haddaa u dhaba-gashid ilaahay mar walba wuuna jecel yahay waxa noo fiicanna ilaahay ayaa og wuxuuna siiyo waa khayr wuxuusana siininna waa khayr hantiyaa rabtay waa weysay waa khayr sidaasaa khayr ku ah ilaahay kuu qadaray ilmaa rabtay waa weysay sidaas ayaa khayr ku ah ogow sidaas ayaa khayr ku ah haddii ilaahay qadara haddii waa imaanayaan haddii kalena weligood ma imaanayaan hantida ama waa hele ama weligaa ma helaysid guurka sidaasoo kale waa hele ama ma helaysid wax alaala waxaa rabtay inaad gaartid muhiim ma aha waxaa muhiima inaad iimaan leedahay oo ilaahay ku xiran tahay oo nadiif tahay oo qof islaame oo xaqa ku sugan oo daacad ah oo nadiif ah oo taqi ah oo nafsadiisana daryeela dadkana daryeela aan dadka dhibaateen inaa noqotidaa muhiim marka walaashay qaali iyo walaalkay qaaliyow waxaa idin leeyahay ha iswaalina waxba ha isku waalin waxba ha isku wareerin wixii ilaahay kuu qadaraa waa helaysaa laakiin jiifa miyaa may waa istaagaysaa waad raadinaysaa waad tabcaysaa waa ordaysaa waa raadinaysaa maaha si iimaan la-aan adoo raadinaysid oo si iswaalaynin xataa orodkaad ordi kartaa waxaa rabta waa u ordi kartaa baska kaa tegi rabay waa u ordaysaa baska waa qabsanaysaa qof aragta in waa soo qabsanaysaa waxaas meeshaas orod ku tag hadaarta waa hela hadii waa ordi kartaa ma ina iska seexanaysid laakiin waxaa laga rabaa adigoo haddana ordaayo si iimaan leh wixii adaawaysid inaadan qaracmin oona ooyin oona dhibaatoonin wax kastaa heshaa waa khayr wax kastaa weysaana waa khayr inaa weysidaa khayr ku tahay marka maanta xikmadan idin soo gaartaa oo ah ha iswaalin ha iswareerin adduunyaha ha isku waalin waxba ha isku waalin wixii ilaahay kuu qadaraa waa hele iimaankaaga qab waa xikmad iimaankaaga qab laakiin seexa ma aha waa dadaal istaag oo raadi oo ficilka la imow oo dadaal lahow oo horumar gaar
oo hore u soco oo niyeyso waxaa la niyeysan lama helo guurka haddaa niyeysatid waa helaysaa haddaa weysine ilaahay maba qadarinbo markuu ilaahay qadaro imaanaa qofkii ilaahay ku qadaro wuu soo socdaa wax walba waa saas risiq waa saas laakiin iswaal indha cadays dadka waxooda fiirisid tuuganimo dhac boob qiyaamo inaa geshidaa imaanaysa haddaadan iimaan lahaanin marka intay taas dhici lahayd waa inaa isla hadashaa hadda oo dhahdaa war walaalay iyo walaalow iimaan lahow ilaahay ka cabso naftayda waan jeclaha nafsadayda ilaashanaya inaa isdhaad adiga isla hadashid oo nafsadaada ceshatid is ilaashatid taxadirtid maasha allah waa kaas maanta xikmadeeni halkaas ayaa inooga baxay qaybtii ahayd ha iswaalin adduunyana ha isku waalin ha hanqaltaagin oo tartiibso deganaan dadaal waan helaysaa deganaan iyo dadaal la imo waa helaysaa haddaa weysina qeyr haddaa heshina qeyr waa fahanteen soo ma aha waa ku mahadsantihiin dhammaantiinaba la wadaaga walaalihiina waxaana idin leeyahay ha hilmaamina subscribe like and shareka ugu deeqa meesha kheyrka waa la faafiyaa waa walaashin ismahaan khaliif oo idin leh kulan kale iyo ballanteenu maxay ahayd wanaag ballanteennuna waa wanaag iyo xumaanta oo la reebaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi